iyadoo ay bilow tahay bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa deeq raashin oo iska soo aruuriyeen ciidanka Itoobiya ee AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga degmada Garbaharey ayaa ku wareejiyay ku dhawaad 40 qoys oo isugu jira masaakiin waayeel iyo barakacayaal waxaana goobta ay ciidanka Itoobiya deeqda raashinka ku bixinayeen goobjoog ka ah xubno ka socday maamulka degmada ee ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Mudane Aadan Siraad Maxamuud waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay taliye ku-xigeenka ciidanka Itoobiya ee nabad ilaalinta u jooga degmada Garbaharey Cornel Maxamed Kaadir waxa uuna sheegay in ay ugu tala galeen inay ku afuraan walaalahooda danyarta ah waan salaamatachu waan Ramadan soo salaamad darasaachu marka hore waan salaamaya kulligiin waxaan ku salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yimid Cornel የዛሬው ፕሮግራማችን ያው ብዙ ነገር ለመስጠት አይደለም ምናልባት እነዚህ አቅመ ደካማዎች በዚህ በረመዳን ጊዜ ትንሽ ብንደግፋቸው ብለን ወንድሞቻችን ናቸው እናቶቻችን አባቶቻችን ናቸው ይሄን ለመደገፍ ይሄን አስበን ከሬሽናችን አስቀርተን ያመጣናቸው ነው ብዙ አይደለም ለትንሽ ይሆናል ብለን ነው ማንተ waxaan meeshan isagu nimid oo idinku yeednay dadkan tabarta yar ee walaalahana raashinka noo keeno aan aad u faraha badnayn wixii aan ka heli karo inaan ku caawino maanta maadaama ay bishii barakaysnayd ee Ramadaanka ay tahay marka waxaan meesha u nimid waa sidaa darteed dadkana sidaan ugu yeednay waa sidaas darteed sidoo kale waxaa gabagabadii isagana dhankiisa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Garbaharey Mudane Aadan Siraad Maxamuud isagoona uga mahad ceshay ciidanka Itoobiya kaalmada ay soo gaarsiiyeen walaalahood waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaha AMISOM ee maaragtay nala garab taagan inay cadawga ummadda Soomaaliyeed difaaciisa ugu caawiyaan dhigooda noo huraan waqti xaadirka hadda aanu taaganahayna haddana garaamkii ama raashinkii askarta isticmaalaysay ugu deeqay walaalaha Soomaaliyeed oo maaragtay tabarta yar waxa weeyo waanu ka gadoonay aad baan uga mahad celinaynaa dadaalkooda iyo maaragtay sida ay xilkasnimada loo maaragtay shacabka Soomaaliyeed u garab taagan yihiin walaalayaal sidaad aragtaanbo dadkaas shacab